اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، واجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة. السلام عليكم أصحابتي قالي وكسو دواada يوتيوب janaalkeena waa markale iyo muuqaal cusub. maanta hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan idinla wadaagi doonaa rootiinkeyga maanta ama maalin kamid ah noloshayda waxa aan qabto. sida caadiga guri walba oo Soomaali ah subaxii waxaa laga duwaa canjeero. canjeero meeshaan kusoo qasanayaa waa canjeero yar oo fudud. haddaan qasayaa 10 daqiiqo kadibna hore ayaan ka duwayaa. saan ayaan usoo duwaaya. ayada dhan waxay ka kooban tahay bur iyo wax yaroo sokor ah, wax yaroo cusbo ah, wax yaroo leebata ah. alxamdulilah, ilaahay ha inoo barakeeyo. qof kasta aan haysanna ilaahay ha siiyo saa awood badan. ayada dhan sidaan ayaan usoo wada duwaaya. waqti badan ma qaadanayso. aniga ma jecli in habeenkii aan qaso. badanaa waxaan qastaa subaxii hadiiba aan maalintaas canjeero aan dubaneyno. alxamdulilah, mar walba ilaahay ayaa mahad iska leh. subax walbo maalin kasta rootiinkeyga saan maaha, waa uu kala duwan yahay. sidoo kale maalin walbana canjeerada ma duwano. maalmaha qaar waxaan isticmaalaa boorash, maalmaha qaar waxaan isticmaalaa rooti, hadba wixii ay markaas inaga qabato. maanta waxay ahayd maalinteena canjeerada. kastoo inta badan Soomaali haddaan nahabo aan aad u isticmaalno canjeerada guriga subaxii haddaan laga duwin, waxaa waaye maalintaas waxaa ka qaldan. moosti Soomaali saas waay guryahooda. marka alxamdulilah, iyadana sidaan ayaan kusoo wada wadayaa. walaahi canjeero aad u qurux badan ay kusoo baxday. saasay tahaan wax badan ma qasnayn. haddii ay khamiirto ma fiicno, waxay noqonaysaa si qaab dara ah. laakiin haddii ayadoo khamiirin ah hore ka dubtid, qaab qurux badan ay kusoo baxaysaa. maasha allah, lagama sheekeyn karo wallaahi. waxaan kusoo daraya hadeertaan dhuux geel. dhuuxa geelka inta badan waxaa la dhahaa ilmaha wuu u fiican yahay. haddii aad taa hooyo ay ciyaal u joogaan, waa ay fiican tahay inaad u isticmaashid ciyaalka. dhuux geel ayaan kusoo daray iyo wax yaroo sokor ah iyo wax yaroo shaah ah. intaas kadib waqti badan ayaa kasoo wareegay. waxaa la gaara duhurkii. waxaan soo qaaday furuud yar. waxaan rabaa inta inaa furuud yar aan ku diyaarsado. waqti badan ayaa u dhexeeyay xilliga quraacda iyo hadda waan furuud ka diyaarinayo. asagana waan isku soo jarjaraya. sidaan ayaan usoo wada sameynaya hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan isku soo darayaa waa qare, cananaas iyo moos iyo babaay. afarta shay isku soo darayaa. haddii ciyaal ay ku joogaan oo kale aad ay ugu fiican tahay inaad furuudka aad u siisid oo aad ugu isticmaashid. intaas kadib waxaa la gaaray galabkii. hadda xiliyadan waa casiradii camal 10 saac meelahaas waaye. waan soo baxay, waxaan soo aaday supermarket xaafadeena aad ugu dhow. waxaan rabaa inaan ka qaato alaabo yaryar oo aan badnayn. ugu horeyn waxaan u baahanahay yoogad. yoogadka aan qaadanayana waad arki doontaan. sidoo kale ukun ayadana waa rabay. waxyaabahaas oo idil ayaan soo qaatay. yoogadka midkaas ayaan qaadanayaa, ama noocaas oo dhowrka xabo iskugu xiran ayaan qaadanayaa. aad u fiican yahay, ciyaalka aad ugu fiican yahay. midkan ayaan isticmaalaa aniga. maasha allah, aad u fiican yahay. vanilla soy iyo strawberry labada waan soo qaatay. intaas kadib guriga ayaan imaaday. hadda xiliyada maqrib ayaa soo dhow. waqti ayaa dana u dhexeysay. rootiinka waa maalinteeda oo idil waxa aan qabto. casho yar oo iga tirsan lahaay wax yar ayaan rabaa inaan inta ku sameeyo. chicken yar ayaan soo sameeyay. chickenka marka subaxii camal ayaan habeeyay oo waxaan geliyay fridge-ka si uu si fiican iskugu dhex galo. waxaan sameeyay biyo yar ayaan ku karkariyay, kadibna waxaan mariyay xawaajiyaashiisa. fridge-ka ayaan geliyay. markaan aan sameynayana waa maqribka camal. sidoo kale inta waxaan kusoo sameysanayaa baasto isku karis.
baastadan aad ay u fududahay, waxaan ka kooban tahay yaanyo, shiishiid, maraq digaag iyo wax yar oo saliid ah, intaas oo isku kariye. waa casho yar oo fudud ayaa laga rabaa, ma rabo inay waqti badan ay iga qaadato. ugu dambeyna sidan quruxda badan ayay kusoo baxday baastadeeni iyo jikinkeeni. wallaahi waxay ahayd casho yar oo fudud oo aad u macaan. maalin kamid ah maalmahayga sidan ayuu ahaa, waxay ahayd maalin qurux badan. alxamdulilah, ilaahay ayaa mar walba mahad iska leh, nicmooyinkoona siiya asagaa ku mahadsan. alxamdulilah, shukrullahi rabbilcaalamiin. ugu dambeyn, haddii aad halkan soo gaarto waan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro, kamid noqo asxaabteena. haddii aad hore noola joogtana waad mahadsan tahay.